bismillaahi raxmaani raxiim. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. dhegeystayaal daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii bara naftaada qaybteedii koowaad waan maanta uga hadli doono si fudud ama qaybo yar oo lagu ogaado inaad tahay ruux caqli badan ama caaqil ah. haddii qodobadan aadan lahayn macnaheeda maaha inaadan ahayn ruux caqli badan, balse waxaan soo qaadanay qayb yar oo kooban oo ku saabsan calaamadaha aad isku garan karto ama lagu garto ruuxa caqliga badan ama caaqilka ah. number 1 waxaa tahay ruux danqasho leh. markii aad tahay ruux danqasho leh micnaheedu waa inaad fahmi kartaa dhibta qofka kale ama hadalkiisa murugada ama dhibta ka muuqata. noolaha kale muuqaalkooda ama wejigooda ayaad awoodaa inaad ka aqriso marxaladda ay ku sugan yihiin, sida farxadda, murugta, cabsida, xanaaqa ama walwalka. waxaa tahay ruux fahmi kara aadanaha intiisa badan adigoo aan waxba su'aalaha weydiinin ayaad awoodaa inaad dusha ka fahanto qofkan marxaladda iyo xaaladda uu ku sugan yahay. qaybta labaad waxaa xiisaysaa kelinimada. inta badan dadka caqliga badani waxa ay yihiin kuwo jecel keli ahaanshiyaha ama inay keligood wax qabtaan oo aanay dadka kale inta badan aysan ku dhex jirin. ku dhex jirka dadka faraha badan leh ama inta badan inaad ku dhex jirto dad bulsho ah waxaad ku dareentaa caajis. waxaad jeceshahay inaad keligaa wax akhrisato, mararka qaar aad wax daawato, mararka qaar aad wax dhagaysato. waqtigaaga ugu faraha badan leh waxaad la qaadataa nafsadaada. keli ahaanshiyuhu waxay jaanis kuu siisaa inaad wax badan nafsadaada ka baratid ama aad wax badan aad odarostid. nambarka 3 waxaa tahay ruux wax ka barta qaladaadkiisa. aadanaha oo dhami ayuu qalad ka dhacaa ama qalad gala, balse qofka caaqilka ahi waa qof wax ka barta qaladkiisa kuna dadaala inuusan qalad midkii shalay uu galay oo kale ah uusan maanta gelin. waxaad aqbashaa qaladkaada oo waxaad qaadataa inuu qalad kaa dhacay oo ruux qaldan aad tahay oo aad qaldami kartid, balse waxaad mar walba ku dadaashaa in qaladkaas waxyaabaha positive-ka ama wanaaga aad ka qaadato, wixii kalena aad ka qaadato negative ah, laakiin aanan dib dambe aadan u gelin qalad noocaas oo kale ah. nambarka 4 waxaa tahay ruux wax aqris badan. qofka markii uu wax aqriyo, dadka caqliga u saaxiibka ahi waxay yihiin dad aad wax u aqriya. wax aqrisku waxa ay jaanis ku siisaa inaad wax badan aad ogaato ama wax badan aad barato. qofka inta badan wax badan og ama wax badan bartay mar walba bini'aadanka kale waa uu ka caqli badan yahay. qofka caqliga badan leh ama caaqilka waa qof xiiseeya aan ku caajisin wax aqrinta oo waqtiyada firaaqada uu leeyahay wuxuu jecel yahay inuu wax aqriyo. nambarka 5 waxaa tahay ruux naftiisa ka adag oo xakameyn kara. kaadkaashiyaha nafta waa shay aad u adag oo ruux kasta aanu awoodin. waxaa taqaanaa sida loo kontrolo dareenkaaga, sida carada oo kale, walwalka ama wixii la midka ah. waxaa tahay ruux mar walba nafsadiisa ka adag. waxaa tahay ruux kontroli kara emotionkiisa ama marxaladda markaas uu ku jiro uunan walwalka ama caradaadoo kale aysan marxalad ama xaalad ku jirta aanay kaa haleyn karin oo mar walba nafsadaada aad kontroli kartid. waxaa kaloo tahay ruux waxay u kala saaran yihiin nafsadaada markaad kontrolayso waxyaabaha way ku kala saaran yihiin oo ruuxii wax isaga qaldan yihiin ma tihid. nambarka 6 waxaa tahay ruux su'aalo badan. ruux su'aalo macquul ah dadka weydiiya markii kulan la wada joogo ama meel dad ay ku kulmaan. mar walba waxaa tahay su'aal muhiim ah ama point muhiim ah oo aysan dadku filaynin in aad dadka weydiiso si aad u hesho xogo fara badan oo markaas muhiim ku ah oo wax ku siyaadin karo dadkana ugu jawaabto ayaga su'aalaha ay ku weydiiyaan. adna mar walba waxaa tahay shaqsi markii meesha la wada fadhiyo su'aal dadka ka daahsoonay dadka weydiiya. halkaas aan nooga egyahay barnaamijkeeni maanta aan uga hadlaynay sida lagu ogaado inaad tahay ruux caqli badan oo caaqil ah. inta barnaamij cinkan oo kale aan ku kulmi doono waxaanu idin leenahay nabaadiina iyo nooli.